halkan waa degmada Wallaweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Indhaha iyo dhegaha bulshada waxa ay ku reebtay mahadda xanuun badan. Waxa la isku dilay sidii dad ku kala duwan xag walba oo kala duwanaansho bini'aadamka dhex jiro, sida midab, diin iyo wixii raaca. Maxkamadda ciidamada oo iyada awood u leh ka jawaabidda xaaladaha degdega ah ee hubaysan iyo ficilada argagixisada, sida gubidda iyo gowraca, ayaa halkan ku wehelisa wakiilo ka socda Koonfur Galbeed Soomaaliya, sida wasiirka cadaaladda Koonfur Galbeed iyo gudoomiyaha gobolkan. Gaashaanle Sare Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida, ayaa u sheegay maamulka iyo odayaal joogay magaalada in maalmo kadib ay go'aamin doonaan ciqaabta kuwii geysta xasuuqii dhacay. anaga mar haddii aan degmada Wallaweyn soo gaarnay dib iyo dhibaato ka dhacday darteedna aan u imaanay inta ay nafi nagu jirto waan fulinaynaa shaqadii aan halkaan u imaanay. kuwii dhibka geystay oo dhibaateeyay oo suurad xumeeyay dhaqankeennii iyo Soomaalinimadeenni oo dad aan waxba galabsanin oo aan dagaal ku jirin dilay, gubay, gowracay, maxaa la yiraahdaa barakiciyay, boobay, way marayaan ciqaabtii ay geysteen, way marayaan. taa horta waxaan rabaa inaad khad guduudan hoosta ka marisaan. waxaan u imaanay anaga halkaani deegaan gaar iyo shakhsi gaar dan gaar ah soo aadna maahay. waxaan u imaanay inaan u adeegnaa deegaankan dhibta ka dhacday aan xal u helnaa. halkan maalmihii ugu dambeeyay waxaa laga wariyay dhacdooyinkii ugu xumaa ee Soomaali qabiil ahaan isugu disho, laakiin hadda waxay amni ku tahay ciidamada danab oo ku dhex jiro. maxkamadda ciidamada ayaa halkan timid, ciidamada danabna amar ku siisay inay amniga sii xakameeyaan, cid kasta oo khatar ku ahna ay ka hortagaan. maanta aan anaga u imaanay wixii ka dambeeya ciidamada iyo saraakiisha danab waxay amar u qabaan oo amar maxkamadeed u haystaan qofkii muwaadin Soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cid difaacaysa nolol iyo geeri toona ku keenaan. waxaan ballan qaadinaa xitaa hadaa geeri ku keentaan inaan ku dul akhrino inuu dhiigiisa hadur ahay oo asaga dhibaatada waday inaan ku dul akhrino. taas inaa gaarsiisaan dadka hala gaarsiiyo in aan cid dhibaataysa looga haraynin. saraakiishuna waxay ku amran yihiin ay ku amar u haystaan in ay soo qabtaan cid walba oo muwaadin naftiisa iyo hantidiisa dhibaataysa. Ibraahim Aadan Najax, gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose, ayaa ugu baaqay dadka inuusan isku dirin qof aan u dareynaynin iyaga. waxaa la leeyahay farnimankan warka ay sheegayaan run maahane wiilkii reer Hibal in Hibal ahaa ninkay geesiga ahaa kaasay u socdaan. waa waanay iridan markaan ka baxno wax ugu horeeyo la sheegi doon dibadaha la iska soo waxa ninaan kuugu dhibahay kuugu dheefahay markaad adiga roobku ku da'ay asaga kuleel joogo, markaad adiga kuleelku ku jirto asaga baraf u da'ay, markaad adiga abaarta qabtid asaga mukeef u shidan yahay. yaan horta maskaxdaada intuu qaato wuxuu rabo ku soo shuban. wafdigan heer federaal iyo heer maamul goboleed ah oo isla socda waxaa naga go'an oo ballan Ilaahay ah cid walba oo dulmi laga galay cadaalad inay hesho. wasiirka cadaaladda Koonfur Galbeed ayaa u sheegay maamulka iyo odayaasha in ay dawladda dadaal gelisay ka jawaabidda ficilada wuxuusnimo xilli isku imaatinka dadka ay adduunka ka qeylinayso sabab la xiriira caabuqa corona. daban wallan dul qaado kora ama la dhageysto kora mas'ala bini'aadam feeray kora masalan riyaaga kora ma ku dheena meelun cid kasta oo dadaal ku jeysatay oo ku olol xumaatay oo ku in madaxda qaranka madaxweynaha dawladda goboleedka Koonfur Galbeed madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagaraan oo guddiga intihasaari muhiimadda guddiga leeyahay muhiimadiisa latin in walweyn ata ma kuwadna daban gudoomiye shurta madiisa lay shakhsi lan la kulama macnaa jawaab waa in time fail ee waqti fail la siin halaw lan walbo arantun inta ku dheedi xogaalan Abdulqaadir Ciise, warbaahinta qaranka, Wallaweyn, Shabeellada Hoose.